mushkiladii ma ku haysataa maanta waxaynu ka hadlaynaa wadada loo maro xalinta mashaakilka mushkiladu noocay doonto ha noqoto ku haysataa wadaduna hadaad u marto xal baad u helaysaa okay waayahay 7 ayaynu ku soo koobaynaa talaabo oo u noqon karta xal mushkilad kasta haday noqoto mushkilad reer haday noqoto mushkilad xiriir haday noqoto mid business mid waxbarasho mid social iyo dad la dhaqan mid adiga iyo ubadkaaga waxay doonto ha noqoto mashaakilka caalamka oo dhan walaalayaal hadaad wadadan u martaan insha Allah xal baad u helaysan okay waayahay number 1 waxa weeyaan identify the problem garo mushkiladii waxay tahay mushkiladii waxba kama qaban karaysa haddaanad garanayn dad baa iska dhex fadhiyo aan garanayn mushkiladu waxay tahay aan farti ku saari kareen so ugu horeyn number 1 mushkiladu waxay tahay garo okay number 2 waxa weeyaan reasons ka mushkilada keenay sababaha raad raac samee mushkilada maxaa kugu keenay halkay ka soo dhalatay okay waayo xanuun kasta waxa la daweyn karaa marka la garto waxa keenay waa fahamtay so number 2 daraasad fiican samee garo sababta keentay number 3 waxa weeyaan find a solution for the problem mushkiladii waad garatay sababtii keentay soo maaha waxaad raadinaysaa xalkii mushkilada okay fakir xanuun kasta xal buu leeyahay number 3 xalkii markaad keento aad garato number 4 muxuu noqonayaa decision-kii inaad go'aan ka qaadato ku dhaqaaqi xalka waayo xalkii markaad ku keento maskaxda aad fahamto haddaanad ficil raacin oo aanad ku dhaqaaqin dee xalku halka intuu ka soo baxo kaligiis hagaajin maayo xalku wuxuu rabaa hawlgal ficil waad fahamtay dagaal baad galaysaa cadow baa ku hortaagan soo maaha okay waxa uu noqday go'aankii iyo xalkii inaad wax iska celiso soo maaha dee haddaanad kicin oo aanad ficilkii keenin xal mushkiladii meeshii ka bixi mayso waa saas okay waa number 4 decision-kii inaad qaadato ku dhaqaaqi xalka number 5 wuxuu noqonayaa inaad u assign garaysid qof ku dhaqaaqa hawshan so mushkiladii xalkeedii markaad keentay aad go'aamisay in lagu kaco maadaa ku kacaya ma cid kale aad u hawlgelinaysa because tusaalayaal badan idinma siin karayo mid baan idin siinay haddii wuxuu yahay business oo kale ama hawl dad idinka dhaxaysa xalkii markaad adigu garatay go'aankii aad soo goysay in lagu dhaqaaqo maadaa u hawlgeliyay mise waa lagu caawinaya adiga iyo dad baa u hawlgeliyay mise cid kale aad u dhiibi oo ku dhaqaaqaysa wad eegaysa arrinkaa waa number 5 cidda ku dhaqaaqaysa fulinta go'aanka xalka noqday okay waa number 5